iyadoo xaalad jahwareer ay ka taagan tahay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo gacan ku haynteeda saacadihii u dambeeyay marna ciidanka dawladda ay gacanta u galeysay marna al-shabaab ayaa waxa markii ugu horeysay xaaladda magaalada Marka faahfaahin ka bixiyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maamul ahaan u hoostaga wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesay oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga Universal waxa uu sheegay in xaaladda magaalada Marka arinta ka taagan ay mas'uul ka tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in maamul ahaan magaalada Marka ay hoos timaado maamulka Koonfur Galbeed balse siyaasad ahaan dawladda Soomaaliya ay hoos tagto sida uu hadalka u dhigay isagoona tilmaamay in ciidanka dawladda iyo al-shabaab ay ku hareersan yihiin magaalada marka laga hadlayo waa gobolka Shabeellaha Hoose wuxuuna ka tirsan yahay dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya arinta marka ciidamada dawladda ka baxday amisoomna way ka baxday ciidanka qalabka sida Soomaaliya ka baxay militariga waa ka baxeen nabad sugidda ka baxday booliiska ka baxday arinka weyn waa arinta marko ama guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose siyaasad ahaan ay u baaba'san tahay marka meeshan waxa jooga ururka 9aad ururka 5aad ururka 6aad ururka 7aad dadka deegaanka Shabeellaha Hoose ma ahan dadku deegaanay Soomaalidu degayiin ciidamada Shabeellaha Hoose ka soo jeeda ma aragtay ma joogan ciidamada ma aragtay deegaano kale iyo gobolo kale iyo dad kale ma aragtay ka yimid way marka waxaana u jeedidan bull out waa la galay waa laga baxay waa la yimid waa loo noqday wax siyaasad ku saabsan wax nabadgelyo ku saabsan ma wasiirka amniga Geesay oo warkiisa sii wata ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal maamulka Koonfur Galbeed wax kaga qabanayo xaaladda Marka iyo deegaanada guud ahaanba gobolka Shabeellaha Hoose wala shir degdeg ah isugu yimid arintaas waa laga hadlay golaha wasiirada ka fariistay maxalli arintaas madaxweynuhu maqan maaragtay wada hadal iyo niqaash iyo maaragtay loo geystay abaabul ciidan oo Shabeellaha isku xiran ayaa maaragtay laga sameeyay dawladda dhexe alertiga ama qayla dhaantii la gaarsiiyay dhaqdhaqaaqa waa aragtay isku dayga shalay si dib loogu noqon lahaaba dadaalada la sameeyay kamid wali lama quusan dadaalada way jiraan deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa marar badan ay isaga baxeen ciidanka amisom iyo kuwa dawladda Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeedna ciidan awood leh oo qalbaysan oo ka howlgali kara gobolka wali ma joogaan waxa wali xaalad cakiran ay ka jirtaa deegaano kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed sida gobolka Boqol oo degmooyinkiisu ay go'doonsan yihiin Muxuddin Xusni TV-ga Universal magaalada Baydhabo.